بسم الله الرحمن الرحيم. wadaad ka mid ah wadaadada wuxuu ka sheekeynayaa qiso cajiib ah. Wuxuu yiri maalin aad u kululay salaada duhur kadib baan masaajid saxday. Waxaan soo baraarugay qof meyd ah masaajidka la soo geliyay. Markiiba hurdadan ka booday waxaan qayb ka noqday janaasada. Waxaan go'aansaday inaan aaskana qayb ka noqdo sidoo ajarkii ugu dhameystirmo. meydka markaas aanu eeyaasayna aqoon uma lahayn, laakiin waxay iga ahayd inaan ku guto waajibka qofka muslimka meydka ah uu ku leeyahay. aaska kadib cid walba markay howlaheeda gaarka ah qabatay, laakiin aniga waxaan go'aansaday inaan meydka u duceeyo anigoo leh ilaahayow addoonkani maanta adiga ayuu marti ku yahay. haddii uu aniga ii ahaan lahaa ama haddii uu aniga ii iman lahaa isagoo marti ah, waan marti soori lahaa. maanta adiga ayuu marti ku yahay, adigoo ah marti soore kuwa ugu wanaagsan. ilaahayow dambigiisa cafi oo iska cafiyo iska dhaaf. intaas markaan ugu duceeyay kadib baan masaajidka ku soo noqday. waan saxday. hurdada dhexdeeda baan ku arkay qof aad u qurux badan. markaas ayuu ugu yiri adiga soo ma ahayn qofkii ii duceynayay, qofkii ii duceeyay. markaas ayuu yiri haa, laakiin adiga yaa tahay? markaas ayuu ugu jawaabay aniga waxaan ahay qofkii marka dhaweed aad qabriga ugu duceynaysay. ducadaada darteed buu ilaahay igu dambi dhaafay. yaa lilcajab, ilaahayow hana waayin qofka dadkeena aan aad ugu jecelnahay u duceeya. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.